السلام عليكم وعلي خضاب أحبتي في الله. الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو مeel kasta aad joogtaan runtii daqiiqadaha nolosheeda ugu quruxda badan waa daqiiqadaha aan idinkeeda ma qaato. أحبتي في الله walaalaha kamid ah wuxuu leeyahay walaal waxaan ahay qof lagu imtixaamay xubinkiisa taranka yacni waxaan sameeyaa waxaan Soomaalidu u taqaano ciidan billah ilaaha kama maqlay siigada sidaa daraadeed walaalayaal waxaan jeclaystay inaan qisadan idin la wadaago runtii wallahi waa qiso aanan hilmaameen qalbigaygana taabatay nin kamid ah kuwa meedka dhaqa ayaa waxa uu leeyahay anoo dhaqay meedka wiil dhalinyaro ah ayaa waxa dhacday wiilka dhalinyarada gacantiisa ayaa waxay saarneyd xubinkiisa taranka waan ka soo qaaday si aan u dhaqo haddana gacantii isla meesha ayay ku laabatay subxaanallah xubinkiisa taranka ku laabatay haddana waan ka soo qaaday haddana waan yaabay haddana mar labaad way ku laabatay subxaanallah waan yaabay waxaan u tegay wiilka aabihiis waxaan ku dhahay aabe saan ayaa dhacday muxuu wiilkaaga samayn jiray maxaa ku dhacay aabihii wuxuu dhahay ii ballan qaad inaadan haddii aan kuu sheego inaadan qofna u sheegeen waxaa ku dhahay inay dadku ku cibro qaataan un baan u sheegaya mahane si kale uma sheegayo aabihii wuxuu dhahay wiilkayga ayaan soo raadiyey waan u yeeray wuu ila hadli waayey qolkiisa jiifka ayaan imaaday waan ka raadiyey waan ka dhex waayey waxaan tegay qolkii fadhiga asagana waan ka raadiyey balse waan ka waayey markii aan ka soo waayey guriga oo dhan ayaan waxaan ka raadiyey meel aanan ka filaneyn suuliga ayaan ka raadiyey laakiin suuliga waa u xirnaa waan gargaraacay waa liiga furi waayey waan u yeeray waa liila hadli waayey dhowr saac kadib waxaan u yeeray dadka albaabka jabiya albaabkii ayayna jabiyeen laakiin waxaan ugu tegay meesha waxaan ka naxo waxaan la ilmeeyay ayaan ugu tegay meesha waxaan ugu tegay wiilkayga oo meesha jiifa naftu ay ka baxday laakiin sidee ayuu ahaa markii naftu ka baxaysay xubinkiisa taranka ayuu gacanta kula jiray yacni wuxuu sameeyay macsi subxaanallah ciyaadan billah ilaahay baan ka magangalnay sidaas daraadeed walaalka xumaanta sameynaya ilaahay baan kugu dheershay miyaadan ka baqayn in Allah subxaanahu wa ta'ala uu kugu dilo adigoo saas ku sugan walaal inta aad macsida sameeyna waxa fiirin macsida aad sameynaysid inta ay leedahay ha fiirin laakiin waxaad fiirsaa iyo ku caasanaysaa Allah subxaanahu wa ta'ala allahi ku abuuray allahi samaawaadka iyo dhulkan abuuray iyo ku caasanaysaa